madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay dilkii xalay loogu geystay magaalada Jawaahir wasiirka beeraha oo xalay rag hubaysani ay ku toogteen meel aan ka fogeyn hoygiisa oo ku yaala magaalada caasimadda u ah maamulkaasi ee Jawaahir bayaan ka soo baxaya xafiiska warfaafinta madaxweynaha ayaa waxa lagu amray laamaha ammaanka ee Hirshabelle inay gacanta ku soo dhigaan kooxdii ka dambeysay dilka Cabdiqaadir Abuubakar Maxamed Karani oo sidoo kalena ahaa xildhibaan golaha baarlamaanka Hirshabelle ka tirsan mas'uulkan xalay lagu toogtay Jawaahir ayaa waxa dhawaan loo magacaabay wasiirka beeraha waxa lagu toogtay xilli uu ka soo baxayay masjid uu ku soo oogayay salaadii cishaahi dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay dilka loo geystay wasiirka sida lagu qoray baraha wararka dhinaca internetka ee taageersan maaha markii koobaad ee al-shabaab ay ka geysatay gudaha Jawaahir dilal noocan oo kala taliyaha qaybta guud ee booliiska Galmudug Sareeye Guuto Bishaar Abshir Geedi ayaa daahfuray dhismaha saldhigga booliiska Dhuusamareebe oo lagu dhisayo isxilqaan waxa uuna ku yaboohay lacagtii ugu horeysay ciidamada booliiska ayaa saaka subaxnimadii hore saldhigga ka bilaabay howlo nadaafadeed oo qayb ka ah dhismahan saldhigga lagu sameynayo maanta waxaan ka bilaabnay shaqo aad u culus oo يعني ما ندوي تمدام عن رجح دقني سردقة عاصمة مالقبات الجلمدوك وطمام بقى وحكة شره أنا العرق ونحفظ لهين ونحفظ كي طريقها لهين وحفظ الطريقين كأنا لهين وحفظ كي أوبج أنا لهين ويعني مال بربرسن ودوزن وسيرة ويعني أباهن إن رنتي جرمت يددار بدن لو بحيو أيان أسو استاجني إن أنسي اسكو تشيا isxilqaam ah يعني inaan xaaladan aan wax ka bedelna maadaama ay tahay caasimadda muraayadii maamul goboleedka Galmudug laga fiirsanayay waxaan bilownay saakay nadaafadii iyo fatiigii iyo goobtii maaldood aan dhagax dhignay oo aan rabno shaqadii aan dhagax dhignay inaan bilowno oo ah kow inaan maanta wixii nadaafada aan dhamaystirno barrina haddii ilaahay idmo inaan runtii aan jeexno dhulkii labadii qolkii xabsiyada qolkii oobiga qolkii taliye-xigeenka ilaa 5 qol oo shub ah inaan meeshan ka bilowno ilaahay idankiis dhinaca kale taliyaha ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiskana lagu sameynayo saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb waxa uuna xusay in hadda la dhisi doono ilaa 5 qol oo noqon doona xafiisyo iyo meelo lagu xiro maxaabiista waxaan codsanaynaa dhammaan in arintaas nalaka saacido nalaka garab siiyo ciidanka booliiskana ay garab istaagaan dhammaan shacabka reer Galmudug iyo maamul goboleedka Galmudug maxaan ku sheegaa xafiisyada kala duwan annaguna waxaan u taaganahay inaan gudanno waajibaadka naga saaran shacabka iyo dawladnimadaba habeen iyo maalin inaan u taagnaano dhiiggeena inaan u shubno caafimaadkeena inaan u bixinno dhaqaaleena inaan ku bixinno qofka ugu horeeya oo shaqada meeshan ka bilaabata ku deeqaya lacagna wuxuu noqon doonaa aniga waxaana ku deeqayaa maantay meesha shaqada ka bilaabanaysa $1 oo lacaga waxaan rajaynayaa in sida aan isku afgaranay wasiirkana aan u sheegnay in aan furi doono akoon saldhiggan isbedel ku sameeya xabsiyadiisa iyo xafiisyadiisa oo quruxdii iyo bilicdii iyo isku halayntii la isku halayn lahaa taliska ciidanka booliiska qaybta Galmudug iyo caasimadiisa iyo saldhiggiisa inaan u bedelno oo wajiga hadda oo leeyana aan ka bedelno waji qurxoonna u bedelno waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in dhammaan ayna soo garab istaagaan shacabka caasimadda iyo maayarkiisa maamulka Galmudug shacab weynaha reer Galmudug gudaha iyo dibadda meel ay joogaanba shaqadan waa bilaabanaysaa waana dhammaanaysaa insha Allah tacaala waxaan rajaynayaa in dhammaan arintaasna la qaadan doono aad iyo aad u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliska qaybta booliiska Galmudug ayaa ku dadaalaya sidii dib u dayactir iyo qaabeyn loogu sameyn lahaa rugaha iyo talisyada ciidamada booliiska ay ku shaqeeyaan iyadoona sidoo kale la laba jibaaray howlgallada ciidamada booliiska ay ka sameynayaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo kaashanaya isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa xalay la soo gaarsiiyay dad uu dhaawac ka soo gaaray
qarax ka dhacay magaalada Balad Xawe ee gobolka Gedo 6 qof ayaa ku dhimatay qaraxa halkaasi ka dhacay in ka badan 10 qof oo kalena sida wararku sheegayaan way ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dhaawacyada hadda lagu baxnaanay isbitaalka Madiina ayaa qalin lagu sameeyay waxaana soo hagaagaya xaaladooda Cabdirashiid oo ka mid ah ehelada mid ka mid ah dhaawacyada la keenay isbitaalka Madiina ayaa warbaahinta la wadaagay xaaladda dhaawacyada kan imaanay Balad Xawe qarax balaaran oo dadna ay ku dhamaadeen dadna fara badan ay ku dhaawacmeen oo shalay ka dhacay degmada Balad Xawe baan ninkan dhaawiciisa oo la mid oo shalay diyaaradda gargaar noo la fidiyay oo ku nimaadnay alxamdulillah wuu dhiban yahay gacanta uu ka burbursan yahay wuu ka jaban yahay dad badan meesha waa ku hasuuqmeen ilaahay ha u naxariisto dad badan way dhaawacmeen marka dhaawici dadka ninkii la socday baan nahay ninkan waa walaalkay alxamdulillah waan fiican xaalkanagan hadda hawsha waa heer sare ma sha Allah agaasimaha isbitaalka Madiina Haashim Maxamed Faarax in 12 qof oo dhaawac lagu soo gaarsiiyay banimada xalay ahayd halkan isagoo sheegay sidoo kale in 6 kalena ay dhinteen kaamadaas waxay ahayn 12 bukaan 3 kamid ah xaaladooda waa cusleed oo waxa lagu sameeyay qaliinka loo yaqaan laboratomy 8 kamid ah xaaladooda waa fudeed waxa waa qayb qaabilnay waana jiifaan xaaladooda hadda waa soo kabanaysaa oo masha Allah hadda soo arki doona Abdullah Idmo waxaan rajeynaynaa isbuucyada soo dhow inay isbitaalka ka bixi doonaan ku laaban doonaan degmadooda tirada waxa waaye 11 oo rag ah iyo hal dumar sidoo kale waxaa soo booqday dhaawacyada qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi iyagoo sheegay in ay ilaahay xalay tala socdeen xaaladda dhaawacyada waxaan ku suganahay isbitaalka Madiina oo xalay maqribadii la soo gaarsiiyay dhaawac laga keenay magaalada Balad Xawe kuwaas oo la beegsaday qarax dadkaas oo shacab ahaa waxaa ku dhintay 6 qof waxaana ku dhaawacantay 8 qof 8 qof oo dhaawac ahayd waxa la soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho oo aan ugu tagnay aniga iyo wasiir Owliba Xildhibaan Haashim ee laboorka si aan u soo gaarsiino goobaha caafimaadka si loogu dabiibo dhaawacaas dhibaataysan mid kamid ah wuxuu ahaa askari booliska waxaana la geeyay isbitaalka xooga dalka halka shacabkina aan keenay isbitaalka Madiina runtii qarax aad wuxuu ahaa oo shacabka Soomaaliya meel maqaaxi oo gabdho Soomaaliyeed u furan ka shaqeysana ayaa la eegtay taa waxay markhaati u tahay inay ma aragtay aan cid kala soocaynin oo ta shacab iyo wax kasta aysan kala soocaynin marka marka shalay goortii adii 6 habeenimo ayaa maqrino ayaana loo keenay dhaawacyadan 8 ah oo nin askari ku jiro inta kalena shacab ay yihiin marka kuwaasina waxa way hadda xaaladooda aad ay u fiican tahay ilaa iyo 5 qof ayaa qaliin lagu sameeyay qaliinkoodana waa lagu wada guuleystay alxamdulillah hadda xaaladooda maanta aad iyo aad ay u fiican tahay runtii shaqo fiican oo aad u wanaagsan ayaa loo qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii saddexaad ay isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulada dalkaasi shirka uu ka soo qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa shirka kadib waxa warbaahinta la hadlay Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor madaxweynaha maamulka Galmudug oo shirka ugu baaqay inay ka soo qayb galaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo shirkaasi ka soo qayb galin isagoona madaxweynuhu sheegay in shirka lagu lafagurayo qaabka ay noqonayaan doorashooyinka la filayo in dalkaasi ay ka dhacaan ee ku soo foodale sida la socotaan Dhuusamareeb waxaa lagu heshiiyey in bisha August 15keeda la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb 3 si looga heshiiyo hanaan doorasho oo dalku galo madaxdii Soomaaliyeed ee ka soo qayb gashay Dhuusamareeb balantu waxay ahayd 15 bisha August in la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb waxa ka soo qayb galay 15 bisha August oo balankii ilaa hadda soo gaaray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Umar Firish
waxaan welina soo gaarin oo aan shirka ka soo qayb gelin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan, oo runtii aan cududaar u samaynayno ama cududaar leh oo xanuunsan intaan ognahay. Allah caafiyaan leenahay. Dhammaan madaxda u mahadcelinaynaa. madaxdii soo hormartay waqtigii ku timid soo ilaalisay waqtigana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa. sorry waxaa yimid madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtigii ku yimid ballanta sidii ay ahayd. waa mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa halkaan inaan ka cadayno inaan walaalaha maqan sugayno sidii aan diyaar ugu nahay ballantuba ay ahayd oo iyaguba ay dhinacooda ballanta ka qabteen oon leenahay walaalayaal shirka soo gaara noo imaada wixii ama hawlihii loo arko inay mudan yihiin ama wax ay ka jiraan gogoshii iyo goobtii loogu talagalay in looga wada hadlo looga heshiiyo way taallaa oo ballankeeda wada qabanay oo ballankeeda wada qabsanay. sidaa darteed wararkii hawada la isu mariyo iyo fariimo la isu gudbiyo xaaladda maanta Soomaaliya ku jirto iyo waqtiga la joogo kuma aadana waqtigeedina ma ahan. waxaan isleenahay xilli fariimaha hawada la isu mariyo ma joogto. waa la kala duwanaan karaa, waa jiri karaan waxyaabo aan lagu wada qanacsanayn, balse goobteedii iyo gogosheedii iyo ballankeedii baan joognaa oo ay tahay in loo wada hadlo oo lagu heshiiyo. sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa walaalaha sharafta leh saaxiibaday inay yimaadaan gogosha waqtiga ummadda Soomaaliyeed maanta ku jirto xaaladda dalku ku jiro hanka weyn oo Soomaaliya ka leedahay rajada weyn oo ku xiran oo ah doorashada dalku galayo in laga heshiiyo laga wada hadlo uma baahnaan is leeyahay inaan kadib dhacno iyo waqtiga uu ku dhumo wax aan ku aadanayn maslaxada. sidaa darteed halka aan isugu nimaadno sidii gogoshii iyo ballankuba ahaa waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed qaab doorasho way ka heshii jirtay waana ka heshii karnaa. ballan iyo isfaham ku filanna waa soo gaarnay hadda ka hor iyadoo aan cidina nagu dhex jirin ama aan cidina ay Soomaali isfahamsiinayn. madaxda Soomaaliyeed waa iska fahmeen. Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 waa lagu soo heshiiyey. 3na waa lagu heshii karaa iyadaana dabaanad isu ah ummadda Soomaaliyeed. waxaana ku kalsoonahay wixii ka soo baxa Dhuusamareeb 3 inay fulayaan shacabka Soomaaliyeedna ay ku kalsoonaa karaan. Marwo Degan Meerash oo ah hooyo haysata 4 caruur ah ayaa muddo ku dhow bil waxay ku xidhan tahay magaalada Hargeysa. xadhigeeda ayaa yimi kadib markii ay dhawaan baraha bulshada ku baahisay sawir ay xidhan tahay calanka Soomaaliya. muddadaas ay xidhneed ayaan la horkeenin wax maxkamada waxaana ehelkooda oo la xidhiidhay ii sheegeen inaan inantooda ilaa hadda aan la keenin wax maxkamada isla markaana maalin kasta ay ka dhur sugayaan in cadaaladda la mariyo. haddaba Marwo Degan Meerash oo ku jirta xabsiga Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaan khadka taleefanka ku helay waxaana ka waraystay xaaladeeda iyo waliba sidoo kale waxyaabihii ay kala kulantay jeelka muddadii ay xidhneyd. intii aad xidhneyd qoyskaagu ma ku soo booqdeen iyo waliba sidoo kale looyaradii ku doodayay? ma ogola inay igu soo galaan gudaha mar walba wax laga celiyo dibadda ah. maxkamadda iyo maxay ku yidhaahdeen maxaad kala kulantay? walahi maxkamadda waxaan kala kulmaa mar walba gabadha waa in waa gabadha calanka xataa magacayga lagu yeero. tacadiyada lagu geystay ama dhibaatooyinkaad sheeganaysa maxaa ka mid ah? walahi waxaan xiranahay xagga Koodbuur. والله قاعدين نيجي سياسة وقعان وجود وقعان يعني وحوجود بدنا وعي من حياة قار اللي يقولها الله فقش يعني حياة السامين والله ما جربت والله كذا
maadaama Somaliland iyo Soomaaliya ay yihiin laba dal oo kala go'ay arrintoodana aad ka warhayso adigu ma aaminsan tahay inaad qalad gashay oo arrintaas samaysay ay qalad kugu tahay marka dhan xaggooda haddaan u raaco sida ay wadaan ama sida ay u fikrayaan oo kale ama ay hadda igu eedeynayaan oo ah inaan waayahay adiga maxaa kugu kalifay inaad calanka xidhato wallahi ma ban lahayn wax dhibaato ah taaga imanaysa wax hadee digal u arkay ma jirto waa calan Soomaaliyeed waxaan aaminsanayna Soomaali mahay Itoobiya waa xidhiidh ma qabsanin Djibouti ma qabsanin loo garanay dhibaato ka jirta Soomaaliya lagu qabsado Marwo degan oo ilaa hadda aan la horkeenin wax maxkamada ayaa waxay haddana ciidanka ka tirsanaysaa tacadiye fara badan oo ay u geysteen